waxaan maanta hambalyeynaya marka hore taliyaha ciidanka baariyaasha saraakiisha oo dhan saraakiil ku xigeenka dableyda iyo qoysaskooda munaasabadan weyn ee 12 guurada ciidanka qaranka waxaan salaamayaa madaxweynihii hore ka wadana daahir yaala kaahin gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda xildhibaanada golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qaranka ee kala duwan taliyaashii hore madaxweyne ku xigeenadii hore iyo dhammaan martida ka soo qayb gashay munaasabadan weyn ee qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta runtii farxad weyn bay ii tahay aniga iyo shacbiga Soomaaliland ba inaynu ka soo qayb galno munaasabada aasaaska ama dib u aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo u mahadnaqayaa safaaradaha iyo jananada ka yimid dalka Itoobiya ee aynu walaalaha nahay ciidamada qaranka sida la sheegay waxa la aasaasay aasaaskii intii Soomaaliland u xorowday 1994 laakiin Soomaaliland taariikhdeedu inta way ka weyntii oo way ka mug weyntahay ciidamadii ugu horeeyay sida taariikhdu sheegayso ee Soomaaliland yeelato waxa la aasaasay 1914 waana ciidankii la oran jiray Camel Corps ama Camel Corps Soomaaliland taqaanay awrta fuuli jiray inta kadib Ingiriisku wuxuu noo sameeyay intayna xornimada qaadan Somaliland Scouts marka ciidankeenu hore u jiray waqtiga marka la eego muddo 100 sano ka badan baynu ciidan ragliya oo la yaqaan haysanay Somaliland taariikhdeedu wax badan kaga noqon maayo laakiin markaynu gobonimada qaadanay ka yar kadib waxa iyaduna taariikh mudan in dhalinyaradii ku soo tababartay u badnaa dalka Ingiriiska iyo dalal kaleba ay qawadeen midnimadii aynu ku biirnay Soomaaliya waxaanay sameeyeen inqilaab inkastaanu guuleysan 1961 qawadku maantaas u bilaabay halkan dheer baynu soo galnay 1991 shacbiga Soomaaliland isagoo isu dhan waxay go'aansadeen inay qarannimadoodii dib ula soo noqdaan waa fursadan uga faa'iideysanaya anigoo afkiina ku hadlaya inaan u duceeyo dhammaan halyeeyadii naga geeriyooday intii ciidanka qaranku jiray hawshii qaranka ay hayeen waxaan Ilaahay uga barayaa inuu jannadii ka waraabiyo waxaan bogaadinayaa waan u sheegayaa qoysaskoodii iyo carruurtoodii in qarankani idin xasuusnaan doono abaalna idin hayo insha Allah idin abaalgud in qaranku guuleysto sidee abwaanku sheegay waxa leeyahay waxa guusha u sababa inaynu gacmaha isqabsanay waxaan uga mahadnaqayaa shacbigayga gobonimada markasta ay ku difaacayaan qarannimadooda isku garab taagayaan ciidankooda iyo qarannimadooda iyo dawladnimadooda dawladnimada Soomaaliland kuma iman shirar dabadeed oo la aasaasay qarannimadeenu waxay ku timi isku tashigeena dalal kale oo inoo sameeyay dawladnimada ma jiraan go'aan inagu lahayn buu ahaa innaga ayaa ururinay taladeena innaga ayaa midaynay garaadkeena yaa adeegsanay aqoonteena
innaga ayaa isu geynay maalkeenna waxaana ka dhashay Somaliland maanta quruxda badan aynu halka kaga xusayno 32 guurada qaranka maanta waxaan leenahay hal ciidan oo ku dhisan mabaadi'da uu dastuurkeenu sida cad u qeexay waa ciidan difaaci kara qarannimadeena haddii loo baahdana kaalin mugle ka qaadan kara gurmadka xaaladaha degdega ah waa ciidan siyaasadda ka fog oo u go'ay ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka waxaa farxad leh in ciidankeenu uu dhiig cusub ku shaqaynayo ciidanka saraakiisha waxa laga yaabaa inuu u badan yahay intii dhalatay intii aynu xornimada iyo intii halganka intii lagu jiray intii dhalinyaradii dhowr iyo 30 sano 40 sano ugu dambeeyay ayuu u badan yahay ciidanka qaranku xukuumadda waxa ka go'an maadaama cadawgeenu batay u baahannahay inaynu qarankeena difaacno xukuumadda waxa ka go'an in la sameeyo ciidamada kaydka qaranka sidaynu horeba isugu tashan jirnay waxaynu rabnaa inaynu isku tashanno oo ciidanka kaydkeenu abuurayno aynu jeebkeena ku talagalno ee aynaan ku talagelin in cid kale inoo masruufto inoo tababarto inoo samayso sidaa daraaddeed waxaan shacbigayga ku boorinayaa maadaama aynu u diyaargaroobayno howlo adag jeebkeenana ku talagelayno in shacbigu muwaadin kasta wixii cashuure ku waajibay uu bixiyo waxaan idin caddaynayaa in xukuumaddu u dhisan tahay ilaalinta sharafta iyo magaca aad qarankiina ka mudan tihiin ma ogolaan doono cid xurmadiina iyo qabkiina dhaawacda xukuumaddaydu waxay muhiimad gaar ah siinaysaa dhismaha horumarinta ciidanka qaranka innagoo mar kasta ku salaynayna awooddeena ciidamada sharafta badan iyo guud ahaanba dadkayga aan jecelahay waxaan u ballan qaadayaa inta aan xafiiska joogo in yoolkayga koowaad uu noqon doono inaan idinku adeego daacadnimo iyo daahfurnaan waxaan doonayaa inaan magacayga aanan hantidiina ku qorin ee aan quluubtiina ku qoro haddii la yidhaahdo waxaa xukuumadda kor u qaaday tayada ciidanka waxaanu fulinaynaa wejiga koowaad waxaanu ku fulinay wejigii koowaad ee mushaar kordhinta waxaynu qaramaynay ciidan ku dhow 6,000 oo ciidanka qaranka Somaliland maanta ka mid ah kuna kala biiray ciidamada kala duwan ee qaranka ciidanka booliska ciidanka badda iyo ciidamada kale ee loo baahdana way ku biirayaan haddii la yiraahdo waxaynu samaynay tirakoob casri ah oo ciidamada ku saabsan waxaanu casriyeynaynaa nidaamka mushaar bixinta ee ciidamada haddii la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan